ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybtooda ku sugan gobolka Gedo ayaa lagu soo waramayaa in maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay ka saareen deegaano ku yaala inta u dhaxaysa degmooyinka Buurdhuuba iyo Garbahaare ee gobolka Gedo halkaas ay ku dhibaateynayeen bulshada deegaanadaasi. wariye Cumar Caydiru soo ku sugan degmada Garbahaare ee gobolka Gedo ayaa warkan inoo soo diray. iyadoo laga duulayo amarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ahaa in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay kooxda maleeshiyaadka Al-Shabaab ka saaraan goobaha farakutiriska ay kaga dhuumaalaysanayaan Soomaaliya isla markaana ciidamada ay bilaabaan howlgallo degdeg ah ayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee guutada 9 ee gobolka Gedo waxay howlgal lagu baacsanayo Al-Shabaab ka sameeyeen inta u dhaxaysa labada degmo ee Garbahaare iyo sidoo kale degmada Buurdhuuba. howlgalkan ayaa ahaa mid ay ciidamada ku qaadeen fariisimaha yaryar ee Al-Shabaab sida dhuumaalaysiga ku imaadaan wadada kala qaybisa degmada Buurdhuuba iyo sidoo kale Garbahaare. saraakiisha hogaaminaysa howlgalkan ayaa sheegay inuu sii socon doono inta laga ciribtirayo kooxda maleeshiyaadka Al-Shabaab isla markaana shacabka Soomaaliyeed ay nabad isugu kala gooshi lahaayeen labada degmo. taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee gobolka Gedo ee guutada 9aad gaashaanle dhexe Maxamed Cadow Cali Sanka ayaa warbaahinta qaranka u sheegay sida uu qabsoomay howlgalkan iyo sidoo kale qasaaraha ka dhashay inta lagu guda jiray. bismillaahir rahmaanir rahiim. maanta waa ciidankeenu waa soo howlgalay meelaha laga howlgalayna waxaa ka mid ah wadadan isku xirta Buurdhuuba iyo Garbahaare inuu howlgal ka sameeyo meelo qolada nabadiidka ay dadku caqabad ku yihiin oo mootooyin iyo waxay ku yimaadaan oo ceelbiyoodla leh iyo waxyaabo sidaasna inaan ka xaqiijiyo. howlgalku wuxuu ahaa mid aad iyo aad u wanaagsan wax cadow ilaa iyo hadda aan la kulannayna ma jirto. 25 kiiloomitir wadada u dhaxaysa Garbahaare ayaan maanta furnay wax problem oo la kulannay iyo iska hormaad midna ma jiro. waa sii wadayna ilaahay hadduu idmo sida caadadu ahayd waxaan rajaynaynaa waa 40 kiiloomitir Garbahaare iyo Buurdhuuba waxaa jooga ciidamadeena iyo ciidamada Amisom especially waxaan rabnaa xaggana inay ayaguna ka soo saaraan ilaa 15 kiiloomitir inay wadada ka soo furaan wixii 40 kiiloomitir ku jiro inaan xaqiijino wadadana si buuxdo inaan wax uga qabano furno. Amisom ciidanka xoogga ee guutada 9aad ayaa hadda operation ka wada furista wado. waxaan noo qorshaysan sida muuqanayso cad annagoo runtii qaadanayno amarkii madaxweynaha ra'iisul wasaaraha taliska wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska xoogga oo ahayd guud ahaan in la qaadi doono gulufka dhan ah Al-Shabaab. waxaan u diyaar garownay qayb ka mid ah amarkaas oo diyaar garow waa ku jirnaa. labo waxaan sii wadi doonaa hadduu Ilaahay idmo meelo badan oo hadda aan isleenahay way yimaadaan oo dadka ayay xoolo iyo waxyaabo la mid ah ka qaadi doonaan sida Buraa ee Faanweyn maxaa la oran jiray meesha la yiraahdo Ceel Gaduud meesha la yiraahdo Busul Golweyn dhulkaas maxaa la oran jiray Kabis dhulkaas aan noo qorshaysan maxaa la oran jiray hadda inaan waxa weeye aan ka sii ku garaacno ama aan ka faramaroojino ama maxaa la oran jiray aan ka sii howlgalno hadduu Ilaahay. dhanka kale ciidamada guutada 9aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed ee gobolka Gedo ayaa bilaabay u diyaar garowga howlgallo ka dhan Al-Shabaab isla markaana looga saarayo deegaanada yaryar ay kaga sugan yihiin gobolka Gedo ahaan deegaanka Ceelcadda oo gacanta u gashay sanadkii ayna ku soo gudubnay. Cumar Caydiru Ahmed warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Garbahaare.